gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in aan la aqbali karin in falal amniga ka soo horjeeda ay ka dhacaan gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in aan la qaadan karin marnaba in amniga uu xumaado magaalada Muqdisho iyadoo ay joogaan hay'adaha ammaanka. haddii aan la sameeynin howlgal oo aan la sameeynin aan ciidankii lagu hogaaminin inay dagaal qaadaan oo magaalada ciidanka lagu dhaxayaa waxa dhacayo waxa hadda dhacayo kale askariga iyo ciidamadu way baxayaan baabuurta ka horeeyana xabaday ku ridayaan baabuurta ka dambeeyana xabaday ku ridayaan intaas markay dhacdo waxa dhacayo gabadha yareedo 9 jirka aheeda dhimanayso wiilkii mooto bajaajka wata dhimanayo waxa dhimanayo wiilkii gaariga raaxada wata dhimanayo waxa soo dhan waxa asal ah ciidankii oo shacabkii dhixiisa lagu haayo ciidankii oo aan shaqadiisii aan loo dirin howlgal aan la qaadin iyo ciidan meel fadhiya dad maqasho waxay faa'iido u tahay tuug dad jidooga oo dadka dhacayo waxay kaloo faa'iido u tahay argagixisada waad maqlaysaan meelaha qaarkood gabar ardayad ah oo shariicada islaamka baranaysa loogu galay fasalkeeda oo lagu dilay waxaas maxaa keenaya ayagaan culays la saarin meelay joogaan wuu ku fikiraa marka wuxuu ku fikiraa inuu dhibaateeyo dadka waa meesha ugu dambaysa macna gabar fasalkeeda dhiganayso oo jaamacad ku jirto waliba diinta islaamka baranaysa in inta la tagaalo la dilaa waxa keenay fadhigeena keenay macna dawladdu way dadaashaa sida ogtihiinba maxaa la dhahay in xuquuq la helaa waliba saraakiishu inay darajooyinka ay xiran yihiin ku helaan iyo ku dadaashay taa bedelkeeda anaga maxaa naga rabaa waxaas nala siinaayo maxay yihiin sadaqa miya tadawuc miya wixii dawladuna siiyayso maya sadaqa maaha waxa waaye waxaan nagala bedelanaa waajibna saaran nagala bedelanaa waajib sargaalka saaran loogu qiimeeyo darajadaas aan leedahay mishaarkaas aan leedahay dadkaas ku dheerta inuu darajada iyo waxaas sadaqa u qaato oo inay sadaqayihiin ta ka aamin gurigiisa fadhiistaa ma waa inuu ka soo dhalaalaa oo shaqadiisa qabtaa hadii kale waxay noqonay wuxuu qaaday naftigeeda aan xalaal noqonaynin la mishaaraadka iyo xuquuqda aan dawladda ka helayno bedelkeeda in nagala helaa oo ciidamadii aan lagu haynin magaalada si in magaalada dhexdeeda dhibaato